Haytham Al-Cadani dulmanihii isagoon dembi geysan dilka xaqdarrada lagu fuliyay. Wiilkan inta la faraxumeeyay oo sidii dhadigii loo fuulay ayaa fiidyo anshaxumaa laga duubay, waxaana lagu rikaateeyay in muuqaalkiisa la faafin doono bulshadana lagu fadeexaynayo hadduusan walaashii u geyn ninkii falka kufsiga kula kacay. wiilkan oo soomanaa 10kii cishe ee ugu dambeysay noloshiisa ayaa lagu qisaasay dalka Yemen kadib markii uu baxsaday walaalkii isaga ka weyn oo ahaa qofkii ka dambeeyay dilkii loo geystay ninkii Cumaaniga ahaa ee faraxumeeyay isagoo xanuun dartii la suuxsan. muwaadiniinta reer Yemen ayaa aad uga carooday dilka dawladoodu ku fulisay Haytham Al-Cadani oo ahaa dulmane aan wax dambiya geysan balse qudhiisu cadaalad u baahnaa maadaama isagoo miir daboolan kufsi lagula kacay. sheekadiisa ayaa noqotay maalmihii ugu dambeysay midda loogu hadalhaynta badan yahay dunida Carabta oo idil, waxaana dawladda Yemen lagu eedeeyay inay si sharci darro ku dishay ninkan maadaama walaalkii uu ahaa gacan ku dhiiglaha dilay ninkan Cumaaniga. duruufo dhaqaale ma ku daashadeen mase doonaysaa inaad degdeg lacag u tabcato? haddaba waa muhiim inaad la xiriirto manager Fawziya oo ka mid ah shirkadda caalamiga ee Forever Living. ka wac nambarka shaashada kaaga muuqda. fadlan like saar muuqaalkan, haddaad noo sheer garaysana waxaan goyn doonaa malaayiin mayl. mahadsanid. Haytham Al-Cadani waxa uu ka dhashay qoys saboola, qasabna waxa noqotay inuu shaqo tago si uu u soo dhiciyo nolol maalmeedka qoyskiisa. waxa uu ka safray magaaladii uu ku dhashay isagoo tegay gobolka Al-Mahra. waxa garab taagnaa adeerkii oo in muddo ah halkaa ka shaqaynayay. ninka Cumaaniga oo ahaa maalqabeen dad badan ee ay u shaqeeyaan ayaa Haytham Al-Cadani ula dhaqmi jiray si wanaagsan, wuxuuna isaga dhigi jiray nin aad u naxariis badan oo kala shaqaynaya sidii isaga iyo qoyskiisu ay nolosha horumar uga gaari lahaayeen. maalin maalmaha ka mid ah ayaa Haytham Al-Cadani waxa uu la sooxay xanuun dartii, wuuna miir beelay. ganacsadaha Cumaaniga ayaana cusbitaalka ula cararay. wiilkan Yemeniga markii uu soo caafimaaday ninkii ganacsadaha ee Cumaaniga ahaa ayuu ka dalbaday inuu siiyo fasax gaaban oo kula aqalgalayo gabadha uu calmaday. munaasabadda aqalgalka xaaskiisa ayaana ka dhacday magaalada Cadan. markii uu soo dhammaystay bisha malabka ayuu dib ugu soo laabtay shaqada, balse ganacsadihii uu adeegi jiray ee reer Cumaan ayaa waxa uu soo jeediyey inuu kireeyo guri 3 qol ah. hal qol waxa uu qorsheeyay inuu dego wiilka Yemeniga iyo xaaskiisa, qolka labaadna wuxuu ugu talagalay Haytham Al-Cadani walaashi, halka qolka saddexaadna uu ku noolaanayo ninka Badrooniga. balse Haytham Al-Cadani ayaa aad ula yaabay hadalka ka soo yeeray ganacsadaha reer Cumaan, waxaana uu weydiiyey sababta walaashi ay uga soo tegayso guriga hooyadeed. laakiin ganacsadaha Cumaaniga ayaa sheegay inuu doonayo walaashi inuu guursado. Haytham Al-Cadani ayaana ganacsadaha Cumaaniga af buuxa ugu sheegay inaysan walaashi guurkiisa diyaar u ahayn, balse ganacsadaha Cumaaniga markii loo diiday gabadha wuxuu Haytham Al-Cadani ugu hanjabay inuu faafin doono fadeexayna doono muuqaal anshaxumaa oo ka duubay isagoo faraxumaynaya una isticmaalaya sidii dumarkii. taasina amakaag iyo afsalax ku dhegayay ku noqotay wiilkan Yemeniga, wuxuuna ku handaday muuqaalkan inuu faafin doono haddii uusan khasab walaashi ugu guurin. wiilka dhalinyarada ee Yemeniga ahaa ayaana soo xasuustay inuu miyir daboolmay isagoo shaqaynaya kolkii uu dareemay xanuun daran, waana midda uga faa'iidaystay ganacsadaha reer Cumaan. inta uu wiilkii u galmooday ayuuna ka duubtay muuqaal. Haytham Al-Cadani ayaana walaalkii ka weyn u sheegay fadeexada ku dhacday iyo faraxumaynta uu geystay ninka Cumaaniga, kaasoo weliba indha adeeg daraaddii doonaya in walaashii qasab loogu guuriyo. Haytham Al-Cadani iyo walaalkii ayaana ku heshiiyey inay shirqool u dhigaan ninkan kana qaadaan telefoonkiisa ay ku kaydsan yihiin sawirada iyo muuqaalada anshaxumada. waxayna ganacsadaha reer Cumaan u sheegeen in walaashooda ay diyaar u tahay aqbashayna inay isaga la aqalgasho. waxayna ninkii reer Cumaan ku qaateen gaarigooda iyagoo ku qancinaya inay u geynayaan walaashooda ku sugaysa hoteelka. intii jidka la sii socday ayaase Haytham Al-Cadani walaalkii ka weyn waxa uu la soo baxay Torrey, waxaana uu dhowr meelood ka geliyay ninkii ganacsadaha Cumaaniga ahaa. sidaas ayuuna ku geeriyooday ninkii faraxumeeyay Haytham Al-Cadani, halka walaalkii uu goobta isaga baxsaday kuna biiray dagaalyahanada Xuutiyiinta. laakiin Haytham Al-Cadani ayay gacanta ku dhigeen booliiska dalka Yemen, waxaana lagu xukumay dil toogasho 7 sano oo uu ku jiray xabsiga. kadib toddobaadkan ayaa laga oofiyey wax lagu sheegay xadka qisaasta. xukunka dilka ayaa la fuliyey subaxnimadii Isniinta 13 November 2023, waxaana xukunka dilka lagu fuliyey wiilka dhalinyarada ee lagu magacaabo Haytham Al-Cadani. xukunka ayaana ka dhacay xabsiga dhexe ee magaalada Al-Mahra oo ku yaal bariga dalka Yemen, waxaana meydka Haytham Al-Cadani lagu duugay caasimadda ku meel gaarka ee waddanka Yemen ee Cadan.
kolkii dawladdu ay fulisay xukunkii loogu aarayay ninka u dhashay sandalada Cumaan waxa soo baxay mawjado murugo iyo calool xumo ah taasoo soo wajahday dadka u dhashay dalka Yemen sababtuna waxay ahayd in xukunka dilka lagu fuliyay nin dhalinyaro ah oo qudhiisu cadaalad u baahnaa maadaama uusan ahayn gacan ku dhiglaha waxay ku doodayaan inaan xaq loogu lahayn in isaga la dilo balse ay ahayd dawladdu inay soo qabato walaalkii kuna fuliso xukunka qisaasta. ma ka mid tahay qurba joogta Soomaaliyeed ma u baahan tahay fursad ganacsi oo adduunka meel walba aad uga shaqaysan karto ma ku nooshahay wadamada Mareykanka, Canada iyo Yurub ma tahay hooyo raadinaysa inay samayso dhaqaale dheeriya xamaal ma ku daashay waxaan ku haynaa nidaam ganacsi oo guuleystay oo aad ka mid noqon karto fadlan haddii aad ku nooshahay wadamada aan horey u soo sheegnay shuruudahana aad buuxin karto nala soo xiriir waa inaad tahay qof positive ah lehna go'aan adag waa inaad ku nooshahay wadamada aan soo sheegnay waa inaad tahay qof bulshaawi ah kuna wanaagsan dhexgalka dadka waa inaad diyaar u tahay inaad ku bilowdo ganacsiga dhaqaale aad u kooban haddaba isqoridda iyo isdiiwaangelintu waa ay socotaa waxaana diyaar ku ah manager Fawziya oo in muddo ah hawshan uga faa'iideynaysay walaalo badan oo ku nool waqooyi Ameerika iyo guud ahaan caalamka haddaba kala xiriir WhatsApp nambarka shaashada kaaga muuqda.